guutada labaad ee ciidanka commandosta Puntland Danab oo fadhigeedu yahay Ligle Garowe waxay u xaqiijinaysaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland dareen u yeelashada xaalad culeyskeeda leh oo ku saabsan jiritaanka marxalad deganaansho la'aan ah oo lagu sifeyn karo ku takrifal awoodeed iyo jajuub siyaasadeed oo ka jirta guud ahaan Puntland. haddaba si looga badbaado khataraha amni darro wuxuu ciidanka commandoska Danab go'aansaday inuu uga digo cid kasta oo ku lug leh falal abuuri kara amni darro. ciidamadu waxay ku suntan yihiin awoodda iyo xoogga dal kasta waana kuwa naftood horayaal ah oo habeen iyo maalin u taagan ilaalinta sharafka dadka iyo dalkooda. sidaas darteed waxay og yihiin dhammaan muwaadiniinta reer Puntland guutada labaad ciidanka commandoska Danab in muddo ku siman 15 sano ay u dhabar adeegayeen difaaca amniga gudaha iyo midka dibadda kaasoo ay ku nafwaayeen kuna nafoobeen haliyeeyo badan oo ka tirsan ciidanka commandoska Puntland Danab. haddaba deganaansho la'aanta jirta si looga gudbo waxaanu faraynaa cid kasta oo ay khusayso digniintan inay isugu yimaadaan wada hadal si loo dhowro amniga iyo kala dambeynta lagana noqdo wax walba oo keeni kara xasilooni darro. ciidanka commandoska waxay ka digayaan mar kale diiwaangelin hubaysan iyo doorasho aan heshiis lagu ahayn oo keeni karta dambiyo la xiriira ku takrifal awoodeed iyo qalalaase ka dhex abuurma gudaha Puntland gaar ahaan magaalo madaxda Puntland ee Garowe.